أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. waayeel arkayay naafo ka tahay inta ay xasuusato weligeed indhaheeda wax kuma arag. ma ilaahay suu abuuray anigu waxba ma aragba inta aan leekayba laba jir bad ku beesha laygu dhindhaha laba jirkaygii wixii kaga dhacay xataa jadeecay kuma dhicin bay gudaan dhaqaatiirtu. waa hooyo Caasho Jaamac Dalmar naafanimadeedu kama reebin inay wax barato iyada oo waayeel ah ayay dhex fadhidaa fasal ay wax ka bartaan dad aragga naafo ka ah oo u badan caruur yaryar. waxaa xusid mudan in markii aanu tagnay xarunta maxadka Albasar uu Caasho iyo ardayda kale ee la dhigatay iskuulka wax u dhigayay macallin isna aragga naafo ka ah. xisaabta Soomaaliga luqadaha qaar culumta sayniska iyo quraanka ayay ka barataa halkan. waxaan ka bartaa maxay maadada la qaato xisaab Soomaali English Carabi tarbiyad culum taariikh juqraafi in alla intii la barto maxay waan bartaa. fasalkee tahay? fasalka maxay saddexaad. maxadkan goormaad ku soo biirtay? waxaan ku soo biiray 2019 bishii labaad waxaan ka imi gobolka Togdheer magaalada Burco. Caasho warbaahinta dal jiray u sheegtay inay si bilaash ah halkan wax uga barato. maya quraanka baan bartay laakiin farta braille-ka wax badan ma baranay. 2000 ayaan hal mar Burcaan looga furay kadibna way naga waxay ahayd 2019 bishii labaad iyagana deeq waxbarasho siiyay maxay tooyaan waxaan iska baranay markii hore Maxamuud Xuseen Ducaale macallinkaygan hadda galaaska yagan dhigayay hadda doontimaadeen ayaa maxay tooyaan aan iska baranay meel bahwadaag la yiraahdo ay dadka indhaali oo group ay leeyihiin kadibna isaga ii weydiiyay maxadka wax deeq waxbarasho dadna 2 sanadood bay siiyeen sanad waan dhigtay sanadna wuu ii soconayaa. bilaash meel ku barataa? waliba qolka kiradiisana waxa iga bixiya maamulka. Caasho waxa ay deganayd magaalada Burco waxa ayna magaalada Garowe u timi sidii ay waxbarasho u heli lahayd maadaama ay Burco ka weyday koob waxbarasho oo dadka aragga naafada ka ahi ay wax ka baran karaan. waxa ay leedahay hansare oo ah inay sii gudbiso culumta ay haatan baranayso. riyadeeduna waa inay mar uun macallimad noqoto waxna barto dadka naafada ah gaar ahaan gabdhaha. waan ku taamaya waliba waan ku riyooda laakiin Ilaahay baan weydiisanayaa riyadayda inuu ii rumeeyo oo inaan macallimad noqdo dadka naafada wax barta haasiba dadka indhaha la inaan maxay tahay yoomal milal ayaan Ilaahay waxaan ka rajaynayaa anoo macallimada inaad i waraysato. dadka aragga naafada ka ah gaar ahaan gabdhaha ayay ku dhiirigelinaysaa inay guryaha ka soo baxaan oo wax bartaan maadaama dadka aragga naafada ka ahi ay wax baran karaan. maxadka baana ugu daaweyn marka la eego wax caqabado kale ma kulmo. caruurtana maxay tooyaan iyo macallimiinta iyo kulli ardayda waan isku wada fiicanahay wax maxay tahay wajigabaxa iyo wax caqabada midna maxay kala ma kulmo. waxaan leeyahay maxay tahay da kasto aad joogto iyo maxay tahay naafo kasta tahay wax waad baran kartaa mar haddii Ilaahay aqliga ku siiyay aanu aqligaaga Ilaahay ka qaadino bimacnaa aanu qofku xagga dhimirka ahayn anigu naafanimo taan baan waaqaana anigu samaba aaminsani inaan maxay tooyaan indhala ahay. sidii aan ku bilownay quraanka waxay ka gaadhay jiska afraad welina waa ay dhigataa aayado quraan ah oo ay ku akhrinayso qiraaco macaan aynu wada dhageysano. bismillaahir rahmaanir rahiim arrahmaan allamal qur'aan khalaqal insaan allamahul bayaan الشمس والقمر بحسبان ونجم والشجر يسجدان والسماء رفعها وودع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين maxadka albasar الله العظيم waayahay caasho ugu dambeyn macalin maxamuud xuseen ducaale waa mid ka mid ah barayaasha maxadka albasar waxa uu sheegayaa in gabdhaha naafada ay dadaalaan qaar ka mid ah ardayda macadka ka baxay ayuu sheegay inay jaamacadaha dhigtaan haatan halkan waxaanu ku haynaa dad aragga naafa ka ah oo awal horay aan wax u baran jirin falilaahi alxamdu dadaal badan oo dad sameeyey shakhsiyaad ah iyo taageero ay ka heleen waxaa la yidhaahdo dowladda iyo maaragta iyo dad kale oo khayrka jecel oo iskaashaday waxaanu ku guulaysannay haddaanu nahay barayaasha macadka albasar in maaragta ay soo baxaan dadkii guryaha lagu hayn jiray oo aragga naafada ka ahaa waxna ay bartaaniin yaryar iyo waaweynba iyagoo isugu jira wiilal iyo gabdhanaa leh maxaa bartaan maadooyinka waa su'aal muhiim ah qof walbana laga yaabo inuu isweydiinayo macadkan waxaa laga qaataa maadooyinka laga qaato iskuullada dadka aragga qaba ay wax ku bartaaniin sidii juquraafigii iyo sayniskii iyo taariikhdii iyo soomaali iyo ingiriis iyo adigu 7 maado iskuullada laga qaataa dadkan waxay isugu jiraan dad waaweyn iyo yaryarba way leeyihiin yaryar bayna u badan yihiin dad waaweyn oo na soo codsaday oo aan aqbalayna way jiraan sida hadda xaashada jaamacad dalmar oo kaleeto oo burca nooga soo baartaa naga soo abrid garaysay ma wax jira marka wax dadka marka wuxuu dhigaysaan oo kale lacag ma u dhigtaan mise bilaash dadka bahalka waxa weeye waa bilaash weeye waliba waxa loo sameeyaa facility dheeraada loo sameeyaa dadka guryahooda ka yimaada baska lacag la'aan buu ku soo qaadaa kuna geeya quraacna waxay ku leeyihiin macadka dhexdiisa dad boodhin ah oo joogana way jiraan rigli ah oo kaba tegin macalin dadka naafada ah iyo dadka kale ee aan naafada ahayn marka isbarbar dhigto markii wax loo dhigayo wax baranayaan maxay ku kala duwan yihiin inta badan dadka ma fahansan bismillaah waa su'aal muhiim ah dadka araggala waxay wax ku bartaan far khaas ah oo la yiraahdo farta baraylka la yiraahdo baraylka marka wuxuu samaynayaa waa farta ayaa lagu akhrinayaa markuu ugu horeysa waxaa lagu tababarayaa in uu wax ku akhrin karo waxna ku qori karo farta baraylka markaa ka bacdi ayaa waxa u bilaabanayaa maadooyinkii uu qaadan lahaa oo loogu talagalay muqarrarka sanadkaas marka wax ay ku kala duwan yihiin marka la yiraahdo maadooyinka ay qaadanayaan ma jiraan laakiin waxa lagu kala duwan yahay khadka wax lagu baranayo oo dadka caadiga ah khad wax ku bartaan dadkana barayl ay wax ku bartaan dad ma jiraan maxadka ka baxay oo heer sare ka gaaray jaamacadaha oo kale u gudbay oo ma jiraan maxadkan buu ku eegay waa su'aal ayana isweydiinteeda leh falilaahi alxamdu dadkii ka baxay iskuulka albasar oo wiilal iyo gabdho isugu jira hadda 8 qof oo 7 wiil iyo gabar ayaa jaamacadda bariga afrika noo dhigta oo waxa weeye qaar hadda sanad dugsiyeedka ugu dambeeyay ay ku jiraan marka ma bilaash way ugu dhigtaayo way ugu deeqday mise lacag weeye waliba lacagta macadka ka bixiya badankooda marka dadka haweenka oo kale waliba haweenka dad waxaa jira aaminsan inaysan heer wanaagsan gaari karin wax baran karin guryaha iska joogaan dadkaas adigoo tusaale soo qaadanaya dad halkan wax ka dhigta bismillaah horta ugu horeyn haweenka oo dhan baa culayskaasi haystaa dadka araggalana waa u sii jilicsan yihiin oo haweenka ah marka waxaan leeyahay wax waad baran kadhaan haweenka aan waxba arag hadday gabdho yaryar yihiin iyo haddii kuwa waaweyn yihiinba
guryaha laga soo baxo waxna hala barto dadka ay la joogaan waxaan leeyahay lagu saacideeyo oo lagu maaragtaa taageero inay wax bartaan si ay isugu filaadaan ayagu